Bismillahirrahmanirrahiim daawadayaal ku soo dhawaada YouTube-ka wararka Soomaalida waa maalin Sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 19 bisha January sanadka 2019 wararka Soomaaliya kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah booliiska Soomaaliya oo falal dambiyeedyo kala duwan u xiray saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in saraakiil badan ay u xiran yihiin falal dambiyeedyo kala duwan oo ay ku kaceen afhayeenka booliiska Soomaaliyeed Qaasim Axmed Rooble ayaa faahfaahiyay waxaana uu sheegay in ka badan 30 saraakiil iyo saraakiil xigeena iyo askar ay u xiran yihiin falal dambiyeedyo kala nooc ah waxaana uu sheegay inay wajihi doonaan baaritaano dhawaan sharciga la soo taagi doono isagoona sheegay in dadka u xiran arrimahaasi uu ku jiro taliyaha booliiska degmada Warta Nabadda waxaana uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay la wadaagaan saraakiisha amniga haddii ay arkaan askari ka tallaabay sharciga ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan rabaa inaan la wadaagno sida ay baraha bulshada ku arkeen shalay oo ay taariikhdu ahayd 16 bishii koowaad 19 abaara 5 saac iyo bar subaxnimo ayaa askari lagu magacaabo Cabdi Cabdulla Xasan waxa uu joojiyay gaari nin shacabihii uu watay wuxuu weydiiyay sharcigi laysinkii iyo buuggii wuxuu helay buuggii markii uu weydiiyay buuggii ayuu helay wuxuu yiri laysinkii ma hayo mar alla markii uu yiri laysinkii ma hayo mar alla markii uu yiri wuxuu weydiistay lacag laaluush lacagtii laaluushka ahayd waa uu qaatay taliyaha ciidanka booliisku wax kasta magaalada xamar ka dhaca daqiiqado gudahood ayuu ogaadaa mar alla markii uu ogaaday wuxuu amar ku bixiyay in askarigaas la qabto lana xiro waxaan rabaa marka inaan idin la wadaago askarigaasi wuxuu ku xiran yahay qaybta dambiyada CID ayuu ku xiran yahay waana la gudbin doonaa sida taliyaha ciidanku amar ku bixiyay waxa loo gudbin doonaa maxkamad horeyna waxa u xiraa 32 isugu jirta saraakiil xigeen iyo dablay oo dambiye kala nooc ah hore u galay oo uu kamid yahay taliyii saldhiga Wardhiigley uu kamid ahaa ayaa hore u xiraa xabsiga dhexe ayay ku xiraayeen asaguna meeshaas waa eedeysane wuxuu uga daba tagi doonaa kullee halkaas wuxuu uu sharciga ka helo ayuuna leeyahay cid kasta ciidanka booliisku wuxuu ku shaqeeyaa sharcigaas ayuu ku shaqeeyaa ummaddu u shaqeeyaa qof kasta oo sharcigaas ku xadgudbana wadada ayuu marayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaan la wadaago oo ka codsanno wax allaale iyo wixii ay arkaan oo ayaga kullid ah oo sharciga kullid ah in ay sida ugu dhaqsiyaha badan noola soo xiriiraan saraakiisha ciidanka taliyaha cid kasta ay la soo xiriiraan tilaabada ku habboon ayaa laga qaadayaa waa mahadsantiin taliska CID-da ayaa sidoo kale fariin u diray dhammaan ciidamada qalabka sida oo uu sheegay in laga doonayo inay ka waantoobaan falalka la xiriira musuqmaasuqa sidoo kale al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday deegaanka Baarsanguuni oo ciidamada dawladda Friisin ay ku leeyihiin wararka aan ka helayno deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay saaka aroortii weerar abaabulan ku qaadeen Friisin ciidamada Jubbaland deegaankaasi ay ku leeyihiin wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalyahanada al-shabaab ee weerarkan gaadmada ah soo qaaday ay isku qaybiyeen dhowr jiho iyagoo ujeedkoodu ahaa inay jahwareeriyaan ciidamada ay weerareen weerarkaasi ayaa waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin waxaana wararka ay sheegayaan in khasaaraha badankiisa uu soo gaaray ciidamada Jubbaland ee la weeraray sida wararka ay sheegayaan dhawaanahanba ciidamada Jubbaland gaar ahaan ciidamada la weeraray saaki waxa ay wadeen qorshe ay al-shabaab kaga saarayaan deegaano ay kaga harsan yihiin gobolka Jubbada Hoose saraakiisha ciidamada Jubbaland oo xiriir kala duwan la sameeyay si aan wax badan uga ogaana ayaa waxa ay noo sheegeen in saaki aroortii ciidamo ka tirsan kuwa al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen isla markaana ay ku daba jiraan raadka ciidamada saaki weerarka soo qaaday ciidamada maamulka Jubbaland ayaa hadda isku diyaarinaya sidii ay weeraro culus ay ugu qaadi lahaayeen deegaanada ay al-shabaab kaga sugan yihiin deegaanada Jubbaland isla markaana ay dib gacantooda ay ugu soo celin lahaayeen dhageystayaal warkii aad kala socoteen YouTube-ka wararka Soomaalida waa naga inta wixii soo kordho waan idinla soo socodsiin doonaa dhageystayaal fadlan subscribe dheh channelka si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka